gobolada Sool iyo Sanaag dad Soomaaliyeed oo aad iyo aad u qiimo badan oo mabaadi'da iska raacsan waliba dad midnimada u taagan oo midnimada jecel oo dhibaatooyin badan marka qaarkood u culays badan ay midnimada ku soo gaartay waay laakiin waxaan rabnaa victimka ay yihiin history leedahay taariikh ay leedahay annaga geographic history leedahay colonial history leedahay tribal qabiil history leedahay waa area oo complexity aad u badan yahay oo definitions badan u baahan waa area u baahan framework Soomaalinimada in lagu xalliyo marmarka qaarkood framework qabiilka ama kii isticmaalka history isticmaalka ama geographic history bas oo noo xalinaynin laakiin waxaan qirayaa oo sida data aan dadkii Muqdisho u hadlayay dadkaasi wax badan oo ay mudan yihiin oo politicska waliba iyo representationka ah in ay ka maqan yihiin iyo developmentiga iyo laakiin waxaan u baahanahay xalkooda meel weyn oo Soomaalinimo inaan ku jirnaa dila Soomaaliyana laga maxalli karo garowna laga maxalli karo Hargeysana laga maxalli karo marka mashruuca weyn Soomaalinimada ay socdo in lagu dhaxaliyo ayaa aad iyo aad muxuu ahaay ilaha boon waana sympathy badan aniga runtii aan u hayaa dadka ku nool goboladaas